maadaama aad ila socoteen inaan safar ahay safarkeygana uu ka dhiman yahay 24 hours kaliya oo waxaa la rabay inaan biri safro insha Allah waxa igu soo kordhay in abuuqi aan iska soo baaray testigiisa aan video idin soo dhigay in jawaabtiisi ay noqotay mid positive ah. socdaalkiisii Tukriga una ka socdaalay Malaysia waxa uu noqday liicaato mid istaaga maxaa yeelay waxa laga helay cudurkii saameynta ku yeeshay adduunyada ee magaciisu ahaa coronavirus. si kastaba ha noqotee liicaato waxa uu sheegay inaan haba yaraatee wax socdaal ah uusan jirin maadaama laga helay xanuunkii. sidoo kale waxa xusud mudan isla waqtiga uu tagay inay ka hadhan tahay 24 saacadood wax ka yar isla bari toole ay ku beegnayd. haddaba daawadayaal maxaa talow keenay ayaad u malaynaysaa? waxa ahaa nin iska faraxsan muuqaalada baraha bulshada oo ku soo baahinayna dhamaantood waxay ahaayeen ku aan laga dareemeyn xanuun. sidoo kale TikTok iyo Instagram aad ayaad ula socotaan oo muuqaaladiisu waxay ahaayeen ku aan laga dareemeyn. sidoo kale YouTube-kana waad la socotaan. haddaba daawadayaal muuqaalkan ayaynu kaga warrami doonaa waxyaabo badan balse marka koobaad waxa xasuusina haddii aad ku cusub tahay channelka Mera Films subscribe ku samee gambaleelka furo muuqaalkana sii share garay oo la wadaag asxaabtaada like taad saarta waxa ay tahay dardar iyo dhiirigelin iyo inaan muuqaalada mar walba halkan ku soo gudbiyo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مد السلام كان ميل كستا دونيدا كجوكتان وأنا أقول لي بأن هذا عليا كم قاعد ليعاتو وما سنتين دمانتين أدبين سلام يا مد كلا وحارب إن إذا لسه أرين يرو يوسف كرتي أو ما دام إذا لسه عتين إن سفر هاي سفر كيجنا وكدي مني هاي 24 hours كليا وحال ربينا بري سفره إن شاء الله waxa igu soo kordhay in shalay markii aan cudurkii aan corona ama abuuqi aan iska soo baaray testigiisa aan video idin soo dhigay in jawaabtiisi ay noqotay mid positive ah ama cudurkii la leeyahay waa laga helay. Allah caafimaad ha siiyo cudurkana caafimaad Ilaahay ha ugu bedelay. haddaba liicaato waad dareensanaydeen muuqaaladiisa waxaanuna ay kamay muuqanin toloma ku soo boodo ayuu noqon karaa cudurku maadaama uu imikuun xaqiijiyay muuqaalka waxa uu soo dhigay saako jimcaha ee salaadii hore hase ahaatee waxa dabcan daawaday dad ka badan 20,000. sidoo kale muuqaalku saacad ku dhawaad ayuu yaalaa. haddaba daawadayaal waxaynu Ilaahay caafimaad u weydiinaynaa liicaato sida aynu la soconay xanuunkan coronavirus waxa uu ahaa xanuun gabi ahaanba saameyn ku yeeshay adduunyada. sidoo kale waxa uu noqday intaas oo bilyan oo milyan oo dad ah inuu laayay. sidoo kale waxa la sheegaa intaas oo milyan oo dadana inuu ku dhacay 1 milyan iyo meelahaas dhowr boqol baa la sheegay dadka xanuunkan ma taqaanayay ku dhacay. sidoo kale waxa la sheegaa inuu dad ka badan dhowr boqol ku dhawaad meelahaas ay u dhinteen. haddaba daawadayaal Ilaahay ayaan caafimaad u weydiinaynaa. haddii aynu ku yaran noqono liicaato waxay ahaayeen asxaab aad u fara badan isna guri degnaayeen. maxaad u malaynaysaa talow ma qabaan iyaguna baaritaan kulli iyaguna way mari doonaan xaqiiqadana waxay noogu soo gudbin doonaan baraha bulshada ay isticmaalaan daqiiqada kadibna ay soo gaari doonaan insha Allah rag u qaabilsan dhankan caafimaadka dawladda Malaysia. alxamdulillah waxba ka waa wax Ilaahay igu tala galay waana ku qanacsanahay ismana lahayn cudurkan aan laga heli doonaa mise markii jawaabtaada ay soo baxdo kale wuxuu noqon doonaa in corona laga helo ismaana lahayn sababtoo ah qof caadi ah waxban igama aan haleysnayn waa diga arkayseen video idin soo duubay inkastoo aan ka yara gaabiyo dhankan Instagram-ka maadaama aan iska dareemay daal farada uu liicaato sheegay haba yaraatee wax xanuun la dhahdo ma uu dareemeyn maxaa yeelay waxa uu ahaa mid caafimaad qaba. sidoo kalena baraha bulshada muuqaalada uu soo galinayay dhammaanba waxa laga dareemayay caafimaad. sidoo kale xanuunkan ayaa noqday xanuun gabi ahaanba saameyn ku yeeshay baraha bulshada. sidoo kale sanadiina soo dhaaftay 2019 kala barkiisuun ayaa u bilowday intaas oo kun oo qofna waxa ay noqdeen kuwa u dhinta. xanuunkan ayaa markiisa hore ka soo kacay xagga iyo wadanka China ugu dambeyntiina gaadhay adduunyada daraf ilaa ka daraf. taasina waxa ay sababtay in meel kasta oo isu socod ahaa dhammaanba la joojiyo haddii Soomaaliya ahayd iyo sidoo kale haddii ahayd gabi ahaanba wadamada Islaamka iyo wadamada reer galbeedka adduunyada ha kala qaadin dhammaanba waxa ay joojiyeen socdaaladii loogu soo galayay wadamadooda iyo sidoo kale socdaaladii ay ugu tagayeen wadamada kale. haddii ay dabcan ayna ka fursan weydo inuu qofku socdaal galo waxay noqotay mid baaritaan aad weyn la saaro kadib
haddii laga helana waxa ay noqonaysaa in lagu karantiimeeyo muddooyin aad u fara badan. Si kastaba ha noqotee waxaa laga ilaalinayaa dadka ku imanaya iyo sidoo kale dhammaan dadka kale ee booqashada kuugu imanaya ama sidoo kale asxaabtaada ah iyo sidoo kale dhammaanba dadka kale ee aad jaanibka kala tihiin aydan isgaranaynin. dhammaanba waxa ay dadku ka sheekaysan yihiin inuu cudurkaasi uu gaari doono dad aad u fara badan. taa laajigeeda qofka waxa ay tahay in la karantiimeeyo. haddaba Liicaato dhammaanba waxa uu joojiyay safarkiisii Turkiga maxaa yeelay waxa kusoo baxay xanuunkii baaritaan dheer kadib muddo dabcan 24 saacadood ay jawaabtuna qaadataa xanuunka marka laga baarayo. haddaba muuqaalkan waxa uu ku sheegay sidoo kale in uu karantiin ahaan doono muddooyin aad u fara badan. muuqaalku uu sii socdaa deertan aan dareemayo marka in urkina uu iga sii yaraanayo madax xanuunkii iyo qandhadina ay igu soo badanayso. midda kalena waxa aad iyo aad ay sugayay safarkiga Carigaas iyo Turkiga dad badan oo ii taagnaa hadda maanta ay hurdayaan waan ogahay laakiin markay soo kacaan dad aniga dartay isku diyaar gareynayay soo dhaweyn qurux badan inay ii sameeyeen diyaar u ahaayeen ayagana waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantihiin qalbiga idinka jeclahay oo sidaad ii dhiirigelinaysiin ama isku kay diyaarinaysiin oo ku mahadsantihiin. tanna waa mid aniga caafimaadkayga micnaha ku xiran idinkana caafimaadkiina ku xiran oo lacala haddii la dhihi lahaa maanta laisma soo baareen oo waxaan aan qabi lahaa idin dhex imaan lahaan oo waa idin wada qaadsiin lahaa laakiin maasha Allah aada lila tacaalay. hadeertan waxaan liisoo sheegay ragga shalay Instagramka ay ka arkayseen oo aan wada kaftamayno dhaqaatiirta ahayn xitaa dhaqaatiirta Yurubta oo kale waxaan maqlay xitaa in isku dhawaanin qofka waxaas qabo kale in qofka dhakhtarka aan loo ogolaan in hoosta ka soo gasho. marka dhaqaatiirta qaar aniga kaamirada qaadanayeen oo gacanta ku qaadanayeen oo isku soo duuduubayeen oo wada kaftamayeen maadaama aan isku sheegay in aan qof YouTuber ah meesha ku wada kaftamayeen Instagramkayga soo dhigay oo kala socon kartaa. marka aniga caafimaadkayga hadeertan marka caadi ah idin hadlaayo waa taam alxamdulillah waan fiicanahay marnaba ismaana dhahin cudurkii laga heli doonaa. balse daawadayaal sida aynu la soconay xanuunka coronavirus waxa uu yahay waqti xaadirka mid sii dabar go'aya waxaana uu yahay mid dhif iyo naadir ku ah dadka muddooyin aad u fara badan. waxa uu ahaa mid dadku ay aad u karantiimaysan yihiin maxaa yeelay xanuunku waxa uu ahaa mid marka kasii dambeysa sii awoodeysanayay daawooyinna waa loo waayay. sidoo kale Alle subxaanahu wa ta'aala ayaa ugu dambeyntii naga qaaday. haddaba Soomaali ahaan haddii aynu nahay xanuunkani waxa uu ahaa mid dhif iyo naadir nagu ah. si kastaba ha noqotee marka loo eego wadamada reer galbeedka waxa uu ahaa kuwa reer galbeedka aad u leynayay. haddaba Liicaato safarkiisi waxa uu sheegay inaan haba yaraatee dabcan uu sidaas ku istaagi doono maxaa yeelay safarkii Liicaato waxa uu noqday dabcan xanuunka mid u baaqda. saaxiibayaal intaan aynu ku gabagabaynaa mawduuceena maanta waa ku mahadsantihiin kamid ahaanshaha iyo kusoo biiritaanka channelka. waxaan Ilaahay uga baryaynaa isaga iyo inta xanuunsanaysa ee xanuunkan la mid ahayo inuu caafimaad Ilaahay sareecana siiyo. dhammaantiin waa mahadsantihiin walaalayaal. muuqaalka sii share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina like taa saartaan waxay tahay dardar iyo dhiirigelin inaan muuqaalada hore ka sii wado. muuqaalkan inoo xigayno balana aad baan idin salaamaya saaxiibayaal.